Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal meel kasta aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aynu ku eegi doono dhacdooyinkii loogu hadalhaynta badnaa sanadka dhammaaday ee 2019 dunida waxaa ka dhacay dhacdooyin fara badan kuwaasi oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, kuwo dhaqaale, kuwo caafimaad iyo weliba dhanka kale masiibooyin dabiici oo haleelay qaar badan oo kamid ah dalalka caalamka. isbedelka cimilada adduunka ee sii kululaanaysay waxay ahayd sanadka 2019 midkii loogu hadalhaynta badnaa. waxaa qabsoomay shirar caalami oo arrintaasi lagaga hadlayay iyo weliba cambaareyno loo soo jeedinayay qaar ka mid ah dalalka hawada wasakhowga sababta u ah. haddaba warbixintan waxaynu ku eegi doonaa sanadka dhammaaday 2019 dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida loogu hadalhaynta badnaa ee daawasho wanaag. aan ku bilownay intii lagu guda jiray sanadkan dhammaaday ee 2019 waxaa markii ugu horeysay si foolka-fool u kulmay hogaamiyayaasha Mareykanka Donald Trump iyo Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kuwaasi oo xudunta wadahadalkoodu ahaa in Kuuriyada Waqooyi ay burburiso hubkeeda nukliyeerka ah, iyadoo oo taas beddelkeedana Kuuriyada Waqooyi laga qaadi doono cunaqabataynta dhaqaale ee Mareykanku saaray ee curyaamisay dhaqaalihii dalkaasi. madaxweyne Trump ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee Mareykan ee la kulma Kuuriyada Waqooyi si uu si nabadgelyo uga dhigo hubka daran ee nukliyeerka, waxaana tiraba 2 jeer oo ay kulmeen labada madaxweyne aan laga gaadhin kulamadaasi wax natiijo ah, inkasta oo dad badan oo arrimaha siyaasadda ka faalooda ku tilmaameen inay ahayd barbilow fiican. Kuuriyada Waqooyi waxay weli sii wadaa tayeynta hubka nukliyeerka, waxaana bishii Oktoobar ee sanadkan dhammaaday ee 2019 ay mar kale tijaabiyeen gantaal nooca balastiga ah. dhammaadka sanadka oo ciidda Christmaska ku beegneed ayaa xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay ugu hanjabtay Mareykanka inay hadiyad ugu soo diri doonto tijaabinta gantaal cusub sidii ay samaysay sanadkii 2017 oo tijaabada gantaal cusub ay ku beegeen xilligaasi oo ay Mareykanka looga dabaaldegayay ciidda Christmaska. waxaa haatan muuqatay in sanadka 2020 uu ku bilaabmayo kala fogaansho weyn oo weli u dhaxeeya labada dhinac. dalka Ingiriiska 2019 waxay dadka dalkaasi mar kale cadeeyeen inaanay kasii mid ahaanaynin midowga Yurub oo ay waqti dheer ku soo jireen. aftidii dadweyne ee la qaaday sanadkii 2016 ayaa si aqlabiyada dadku ugu codeeyeen ka bixitaanka midowga Yurub, balse hogaamiyihii xilligaasi la wareegtay aftida kadib ee Theresa May ayaa 3 jeer oo ay isku dayday inay baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska ay kaga bixi lahayd midowga Yurub ayaa guul daraysay, taasi oo keentay inay xilkaasi iska casisho. balse Boris Johnson oo dadka sida weyn ugu ololeynayay ka bixitaanka midowga Yurub ayaa ra'iisul wasaare noqday, waxaana isna qorshihiisu guul daraystay kadib markii ay baarlamaanka hor istaageen heshiiskii ay isla soo garteen midowga Yurub. waxaanu qaaday qorshe xeeladaysan oo ahaa inuu doorasho xilligeeda kasoo horumarto la qabto, taasoo ay ka dhalatay in xisbigiisa Conservative-ku uu guul taariikhiya ka gaadho doorashadaasi, waxaana badiba xisbigiisu uu ku guuleystay kuraastii baarlamaanka. waxaana doorashadan ay wadada u xaadhay in 31 January Ingiriiska iyo midowga Yurub ay ku kala huleelaan. Shiinaha iyo Mareykanka waxaa dhex maray dagaal ganacsi oo weyn, kaasi oo saameyn ku yeeshay dalalka kale ee caalamka. madaxweyne Trump oo waqtiga ololaha doorashadiisa ku galay inuu kor u qaadi doono dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa bilaabay inuu ku soo rogo alaabta ka imanaysa Shiinaha cashuur dheeraad ah, taasi oo ka cadhaysisay xukuumadda Shiinaha oo iyana qaaday tallaabooyin argoosi ah oo badeecadaha ka yimaada Mareykanka ku soo rogtay lacaga dheeraad ah. inkasta oo dagaalka ganacsi ee labada dhinac uu gaadhay meel halis ah, balse bishii Oktoobar ayay labada dhinac gaadheen heshiis afgarad oo lagu dejinayo xiisadda ganacsi, isla markaana lagu laalayo qaybo ka mid ah lacagaha cashuurta dheeraadka ay soo rogeen. dalka Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay sameeyay kobac ballaaran, taasi oo khatar weyn ku ahayd dalka Mareykanka. balse khubarada dhanka dhaqaalaha ka faaloota waxay tilmaameen intii uu madaxweyne Trump talada Mareykanka qabtay in dhaqaalaha dalkiisu uu sare u sii kacay, iyadoo ay yaraatay geesta kale tirada dadka shaqo la'aanta ah ee dalka Mareykanku. intii lagu guda jiray sanadkan dhammaaday ee 2019 waxaa xiisad weyni ka jirtay gacanka Bershiya kadib markii la weeraray maraakiib ay lahaayeen dowladda Ingiriiska iyo Imaaraadka Carabta, taasi oo lagu eedeeyay in weeraradaasi ay ka dambeysay dowladda Iran oo ay si weyn isu hayaan dalka Sacuudi Arabiya iyo xulafadiisa. dalka Mareykanka ayaa halkaasi u diray in ka badan 3,000 oo askari iyo qalabka weliba difaaca gantaalaha si ay uga hortagaan waxay ku tilmaameen weerarada gardarrada ee Iran ku haysay gaadiidka badeed ee ku safrayay gacanka Hormuz.
geesta kalena in ka badan 14,000 oo askari oo Maraykan ah ayaa heegan la geliyey si ay uga difaacaan dalka Sacuudi Arabiya weerar kasta oo kaga yimaada dhanka Iiraan. dhankaasi dalka Hindiya haddii aynu eegno bishii August waxaa ka qabsoomay doorashada baarlamaanka oo ah doorashada ugu weyn ee dimuqraadiga ee dunida ka qabsoonta. xisbiga ay afkaartiisu u janjeedho dhanka midigta fog ee aaminsan qadiyadda Hinduismka uuna hogaamiyo ra-iisul wasaare Narendra Modi ee la yidhaahdo BJP ayaa guul taariikhiya ka gaadhay doorashadaasi isagoo sii badsaday kuraastii hore ugu lahaa baarlamaanka dalkaasi. arrimaha sida weyn loo hadalhayay ayaa ahayd qadiyadda gobolka Kashmir ee khilaafka xoogani ka taagan yahay, kaasi oo ra-iisul wasaare Modi uu ololihii doorashada ku galay inuu yahay qayb ka mid ah Hindiya, halka Bakistaanna ay dhinaceeda ku doodo inuu gobolkaasi yahay mid ka mid ah dalweynaheeda. bishii December ayay baarlamaanka dalkaasi Hindiya ansixiyeen xeer muran ka dhaliyay dalkaasi, kaasi oo kala saarayay dadka qaxoontiga ku soo gala dalka Hindiya, waxaanu xeerkaasi u dhigayay in jinsiyadda dalkaasi la siin karo oo kaliya dadka aan muslimiinta ahayn, waxaanay tallaabadani dad badani u arkeen mid si gaara loogu takoorayay dadka muslimiinta ah. waxaana gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi ka dhacay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo xeerkaasi, taasi oo keentay in dad kor u dhaafay 36 qof ay ku dhintaan banaanbaxyadaasi kadib isku dhacyo dhex maray booliska iyo dadka mudaharaadayay. muslimiinta dalka Hindiya ayaa 15% ah shacbi weynaha dalkaasi. dhacdooyinka kale ee sida weyn loo hadalhayay sanadka dhammaaday ee 2019 waxaa ka mid ah xilka xayuubintii aqalka Koongareeska ee Maraykanku ay ku sameeyeen madaxweyne Trump, kaasi oo noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu sameeyo xilka xayuubin, inkastoo weli aanay cod u qaadin aqalka sanadku oo ah fursadda ugu dambaysa ee madaxweyne Trump haysto inuu sii joogo aqalka cad iyo inay ku raacaan aqalka Koongareeska ee xilka qaadista ku sameeyey. madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay khiyaamo qaran oo la xidhiidhay inuu doonayay inuu mucaawimada ay Maraykanku siiyaan Ukraine uu shuruud uga dhigay inay baaritaan ku sameeyaan wiil u dhalay Joe Biden oo hore u ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Obama, haatanna ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga ee ay iswajihi karaan Trump doorashada 2020 ka dhacaysa dalka Maraykanka. bisha January ayaa ay si toos ah u gudageli doonaan aqalka sanadku dacwadda lagu soo eedeeyay Trump, waxaana la filayaa in codka kalsoonida loo qaadi doono. dadka siyaasadda Maraykanka ka faallooda waxa ay sheegeen in aqalkaasi ay u badan yihiin mudanayaashiisa xisbiga Republicanka ee Trump inay badbaadin doonaan, maadaama uu xisbigooda xafiiltan xoogan kula jiro xisbiga kale ee dimuqraadiga oo u badan aqalka hoose. isbeddelka cimilada adduunku waxa uu ahaa 2019 waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida laga hadalhayay. meelo badan oo ay dhulka Soomaalidu ay degto uu ku jiro waxaa siibay masiibooyin dabiici ah sida daadad, duufaano, dhulgariiro, kaymo holcay, hawo wasakhow iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay isbeddelka cimilada adduunka, taasi oo saameysay dad iyo dunyaba. dalka Brazil waxaa ka holcay kaymaha caanka ee Amazon, waxaana shuf beelay dhul kumanaan hektar ah, waxaana qaadatay in kaymahaasi la damiyo bilo badan. sidoo kale dabka guud ahaan ka kacay dalal badan oo caalamka ah, islamarkaana ay sababteeda loo aanaynayo isbeddelka cimilada adduunka ayaa lagu qiyaasay 80,000 oo dab ah inuu ka kacay meelo kala duwan. bishii December waxaa ka dhacay dalka Spain shir ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay, kaasi oo lagaga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka, waxaana dhammaanba dalalkii ka soo qayb galay lagu baraarujiyay in isbeddelka cimilada adduunku aanu u baahnayn af kaliya hirgelinta qorshayaasha lagu dhimayo qaaca wasakhaysan ee dalal badan oo warshadaha ka horumaray ay hawada ku sii daayaan. gabadha yar ee lagu magacaabo Greta Thunberg oo 16 jir Swedish oo u dhaqdhaqaaqda wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka ayaa ku guuleysatay in ololaheedu ku faafo wadamo badan oo caalamka ah, iyadoona barnaamijkeeda Fridays for Future amaba jimcayaasha mustaqbalku uu keenay in daayar fara badan oo wadamada reer galbeedka ahi ay jimcayaasha isugu soo baxaan banaanbaxyo ay culayska ku saarayaan siyaasiyiinta dalalkooda inay dhab u qaataan fariimaha khatarta isbeddelka cimilada adduunka ee xilligan. sanadka dhammaaday ee 2019 waxaa biladan nabadda adduunka ee loo yaqaano Nobel Peace Prize ku guuleystay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali, kaasi oo la sheegay inuu ku mutaystay kadib markii uu soo afjaray khilaafka muddada dheer ka dhexeeyay dalkiisa iyo Eritrea.
labadaasi dal ayay ka dhexaysay colaad gaamurtay oo la xidhiidha muran dhanka xuduudka ah, waxaana dowladihii hore ee Itoobiya ay si cad u diideen heshiis ay labada dhinac hore ugu dhex maray dalka Algeria, kaasi oo dhigayay in magaalada Baadhame ee xuduudda ku taala ay leedahay dalka Eritrea loona celiyo, balse waxaa hirgeliyey heshiiskaasi Abiy Ahmed, waana ta keentay inuu ku guuleysto abaalmarintan caalamiga ah oo badiba lagu maamuuso qofka loo arko inuu wax ka taray nabadda adduunka iyo isu soo dhowaanshaha aadamiga colaaduhu kala irdheeyeen. sanadka dhammaaday 2019 dhanka arrimaha qaxoontiga ee dunida waxa uu ahaa sanad ay sareysay tirada dadka muhaajiriinta ee soo gaadhay Ameerika iyo qaybo ka mid ah qaaradda Yurub. bishii Abriil ayay ahayd markii xuduudka dalka Mareykanka uu la wadaago Mexico ay soo dhoobeen kumanaan qaxoonti oo ka soo barakacay jasiiradda El Salvador, taasi oo keentay in Mareykanku xuduudda ka xidho, waxaana halkaasi ka dhalatay xaalad bani'aadanimo oo daran. maamulka madaxweyne Trump ayaa gaashaanka u daruuray inay dadkaasi soo galaan Mareykanka, isagoo oo geesta kale sii xoojiyey dhamaystirka derbiga laga sameynayay xuduudka Mareykanka iyo Mexico si loo yareeyo muhaajiriinta iyo kuwa ka ganacsada maandooriyayaasha una soo dhoofiya dalka Mareykanka. dhanka isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalalka caalamka 2019, mudaharaado iyo kacdoonno waaweyn ayaa ka dhacay dalal badan oo caalamka ah. sanadka dhammaaday 2019, dalka Hong Kong waxaa weli ka sii socday banaanbaxyo dadka dalkaasi ay ku dalbanayaan isbeddel siyaasadeed oo dimuqraadi iyo weliba in la yareeyo faragelinta uu Shiinuhu ku leeyahay dalkaasi. ardayda jaamacadaha iyo in badan oo ka mid ah bulshada Hong Kong ayaa ku jira xabsiyada weli, kuwaasi oo lagu qabqabtay banaanbaxyadii ugu dambeeyay ee rabshadaha watay. doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday Hong Kong oo ah gobol uu Ingiriisku gumaysan jiray kadibna uu ku wareejiyay Shiinaha ayaa guul weyn ay ka gaadheen dadka dibadbaxayay, iyaga oo badiba ku guuleystay kuraastii golayaasha deegaanka, taasi oo noqotay fariin kale oo ay bulshada dalkaasi u dirayeen Shiinaha iyo weliba dowladda haatan ka talisa gobolkaasi. kacdoonno ay sameeyeen dadka dalalka Suudaan iyo Algeria ayay ku guuleysteen inay ku khasbaan sida ay xukunka uga dejin lahaayeen madaxweynihii Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir iyo madaxweynihii Algeria Cabdulcasiis Bouteflika oo soo maamulayay dalalkaasi sanado badan. inkastoo aanay weli helin dadka dalalkaasi isbeddelkii ay doonayeen, balse haddana waxay in badan oo ka mid ah ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin raggaasi keligood taliyayaasha ahi inay xukunka baaqi ku sii ahaanin. geesta kale, muujado banaanbaxya oo ka dhacay dalalka Ciraaq iyo Lebnaan ayaa galaaftay inay iscasilaan ra'iisul wasaareyaashii dalalkaasi kadib markii ay shucubta wadamadaasi ku eedeeyeen dowladahooda musuqmaasuq iyo hoggaan xumo. dhacdooyinka kale ee dhacay 2019 waxaa ka mid ahaa in hogaamiyihii mucaaridka Venezuela Juan Guaido uu isu caleema saaray xilka madaxweyne ee dalkaasi, isagoo taageero ka helayay dalka Mareykanka, balse waxaa tallaabadaasi ku gacan seeday madaxweynihii dalkaasi Nicolas Maduro oo ka dhaga adeegay inuu iscasilo kadib markii ay dadka dalkaasi sameeyeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xukunka Maduro. dalka Venezuela oo qani ku ah shidaalka ayaa haatan waxaa soo food saartay sixir barar ay dadka dalkaasi la dhibaataysan yihiin, iyadoo ay u dheer tahay cunaqabatayn uu Mareykanku soo rogay. bishii February dalka Macedonia ayaa magacii hore iska bedelay lana baxay magaca waqooyiga Macedonia. bishii March nin cadaan oo argagixisa ayaa dad muslimiin ku weeraray 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, kaasi oo galaaftay nolosha 51 qof. dab ka kacay magaalada Paris ayaa ku shufbeelay gurigii caanka ah ee loo yaqaanay Notre Dame Cathedral. dowladda Iran ayaa ku howlan tayeynta macdanta uraniumka kadib markii madaxweyne Trump ka baxay heshiiskii ay hore u wada gaareen Iran iyo dalalka quwadaha dunidu. bishii Sebtembar, madaxweyne Trump ayaa shaaciyay inay burbureen wadahadaladii ka dhaxeeyay Mareykanka iyo kooxda Taliban ee ka dagaalanta dalka Afghanistan. bishii Oktoobar, ciidamada gaarka ee Mareykanka ayaa howlgal ay ka fuliyeen dalka Syria waxa ay ku dileen hogaamiyihii kooxda Daesh Abu Bakr al-Baghdadi. bishii November, hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa kasoo hor muuqatay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICJ iyadoo loo haysto in militariga dalkeedu ay xasuuqeen qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya ee dalkaasi ku dhaqan, waxaana dacwadan uu soo gudbiyey dalka Gambia ay guud ahaanba madaxweynaha Myanmar ay beenisay eedaha loo soo jeediyey. intaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay 2019. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cawad Maxamed. inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono, dhammaantiin waxaad kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.